xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ahna afayeenka xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee waqtigan dalku ku sugan yahay arrimaha doorashooyinka ee la filayo in dalka ka qabsoomaan sanadkan isagoo gudida doorashooyinka Somaliland u soo jeediyay inay shaqadooda gartaan waxaana xukuumadda ugu baaqay inay ka waantoobaan muddo kordhinta aan sharciga waafaqsanayn ee aan ku salaysnayn duruufihii dastuurku sheegay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa komishanka doorashooyinka dawladda arkayna maalin dhaweyd inay soo saareen jadwalkii diiwaangelinta codbixiyayaasha komishanka doorashooyinka waxa la yiraahdaa magacooda komishanka doorashooyinka qaranka la yiraahdaa maaha komishanka diiwaangelinta qaranka maaha diiwaangelin kaliya shaqadoodu maaha waa diiwaangelin iyo doorasho waxa laga rabaa oo komishanka doorashooyinka laga doonayaa inay soo saaraan diiwaangelintii oo dhammaystiran iyo maalintii doorashadu dalka ay ka qabsoomi lahayd xeerarka dalka iyagoo raacaya nidaamka dalka xeerarka u yaala ay dhigan iyagoo raacaya waxaa looga fadhiyaa oo looga baahan yahay kow marka hore inay soo saaraan jadwal dhammaystiran oo ah diiwaangelinta codbixiyayaasha xilliga bilaabmaysa xilliga dhamaanayso iyo xilliga dalkan ay ka qabsoomayso doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyadu talabaad anu waxaan u aragnaa xisbi ahaan doorashada xilligeedii aad moodo inay dhaafayso in ay tahay xil gudasho la'aan xukuumadda ka timid xukuumadda oo xilkeedii gudan kari weyday ayaan u aragnaa waxyaabaha dastuuriga ah ee xukuumadda waajibka ku ah ee looga baahan yahay in ay qabato waxa kow ka ah doorashooyinka sanad walba ku jiri mayno muddo kordhin asbaabtii iyo duruuftii dastuurku sheegay aan waafaqsanayn oo qayr sharci ah dalkan wuxuu u baahan yahay in doorashooyinka waqtigeedu ay noqdaan waqti mudaysan oo joogtaysan oo aan wax haba yaraatee dib u dhac la yiraahdo oo marraba ku iman kara aanu jirin 6 sanadood bay xukuumadda hadda joogtay way u fadhiday waa looga fadhiyay in ay soo saarto agabkii iyo qalabkii doorashada isla markaana ay xilligii doorasho ku qabato hase yeeshee markii ay ku guuldareysatay maantana ay muuqato inaanay 26 Juun doorasho ku qaban kareynin maaha abaalgud in looga dhigo muddo kordhin wax leeyahay waxaanu leenahay inta ka horeysa bisha afraad dhamaadkeeda waa in tala qaran la isugu yimaadaa oo shaqadaada ay ku fashilantay xukuumaddu ee doorasho dalkii kaga qaban kari weyday 26 Juun go'aankii laga gaari lahaa xisbiyada qaranka iyo xisbiga xaakimkuba isugu yimaadaan go'aan qaran oo ummadda reer Somaliland u cuntamayna laga gaaraa baanu leenahay geesta kalena xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba waxa uu ganafka ku dhuftay hadallo ka soo yeeray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo waliba xukuumadda Somaliland kuwaasi oo ku taxalluqay in siyaasiyiinta waaweyn ee ku bahoobay madasha wada tashigu ay yihiin kuwa aan sharci ahayn waxaase uu xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba sheegay in siyaasiyiintaasi ay yihiin dad muwaadiniina isla markaana dalka u soo halgamay isla markaana xaq u leh inay aayaha dalkooda ay ka taliyaan waxaana mar kale hadaladiisii ka mid ahaa wada tashigu sharci darada waa muwaadiniin weey waa niman reer Somaliland dastuurka Somaliland wuxuu leeyahay qof kasta muwaadini aayaha wadankiisa inuu ka taliyo xaq buu leeyahay iyo xorriyadiisa iyo hadalkiisa iyo qowlkiisa marka wuxuu diidayaa inay ummadda reer Somaliland iyagoo dadkii u soo halgamay waliba ahaa ee sharafta iyo qiimaha ku lahaa ay ka talinta ummaddan inay ka qayb qaataan wuxuu diidayo dastuurkan tilmaamaha raadinaysa isku soo wada duubo isweydiinta ugu faraha badan ee bulshada Somaliland siyaasiyiinta mucaaridka iyo waliba dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ah in doorasho ay sanadkan ku qabsoomi doonto iyo in kale iyadoo madaxweynaha Somaliland uu marar badan ku celiyay in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoomi doonto balse go'aankii gudida doorashooyinka Somaliland ayaa ganafka ku dhuftay go'aankii madaxweynaha balse waxa aan la garanayn in madaxweynuhu uu kaga dhabayn doono go'aankii hore uu qaatay iyo in kale Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa